الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. waxaan u malaynayaa waxa uu ugu dhib badan qofku inuu naftiisa ka sheekeeyo nin shujaac ah oo geesi ah oo sida akhuna jiiro kale unba arrinta ku fiicnaan lahaa oo xaqiiqadiisa ka warramay ilaahay subxaanahu wa tacaala hidaayadii iyo hanuunka uu siiyey allah u kordhiyo ilaahay baan u baryaynaa horto in ilaahay ku sugo ducadii uu dalbay baan ilaahay u dalbayna u weydiinaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gaarsiiyo والدي رحمة الله عليه أباي شيخ علي صوفي وحو مركي وفاده هل كانوا هرتو كل انتي وهل كانوا كو أسيهي والوالد رحمة الله عليه ماشان كو أسيهي لكن حنون كو حكوب باللوضي وحنون ملينا يا سيدتي صدح دي مالها سياحيد مرة نقول أن أرضيك أها مصر بان يعني يكوب باللوضي waxaan intaa uga gol leeyahay sanadkaas ka hor ee uu xanuunku qabtay ee uu dhacay ee jalda ku yar furantay طالب العلم buu ahaa bishaan hadda culimo iyo fulaan iyo leeyahay buu galaan jiray marka qaarkiis marka uu darsiga inoo akhrinayo wuxuu jahliga dadka ayaa wax naga dhigay mooyee inaan wax sheegna ma baaboori jiray waxaan xusuustaa دوري سجاشن جر تقريبا وقت أنكو قياسي أو كتاب كشاطبي أو كن بقول دوري طبعا بيده وانتو حفظي أي ولي بوكرك كقبتي وهذا أنا كوع العلن جري ما لك استخرج جرور جروا الدأب عن نقض هذا أنا كوع العلن ومركا وحن كوذا وأرنتا وشيء بان دبتاجنا يا أخونا عبد الرزاق إنه طلب العلم والقرآن كجعيل كيسا ودبتها قنادو إلى أمانة ديسي إلهي القاضي أنا قوة الدوني توفيق الله نوفجي أنا مقعيقا عبد الرشيد بالليلة الوالد مقعي شو مجرد أنا علي بالليلة علي ولكن طبعا لقب كمركز دنبه وشيخ علي صوفي نوالي يا شيخ علي صوفي هدي وده هذا وحن كبقى يعني أردت وسبد شوي أنا تاريخ الوالد كعضون تيدي إيش كداية لكن وإيش كفعنا الله هيدو إن بدنا دتك ويديا إذن كوا بيش لفهمينا يقولون إنك عربها قار كوديا نرجع سعودي ومركز سيق لينو أنت صوفي يا صوفي وحاسي شيء إيش صوفي ذا سي ويديا ما لقب ما قبيل با ما فلان با وحاسي ويديا الصوفي يقول لي لنا وبيش كجران با مش هتاسمر كلام كدقنا تقريبا isaga waalidka ii sheegay oo noo sheegay sababta suufi loogu bixiyay iyadoo koobanna isagoo arday ah xamar ardadu markay yimaadaan bari hore laga hadlaya ardadu waa la jiri jiray guriga la geyn jiray guriga marka la geeyo gurigaas ay cuntada ka cunaan kutubtana culimada ka akhristaan laba cali ugu waaweyn oo sheekh aadan awliyahan sheekhu mashhuur ku noqday oo tafsiirka akhriyi jiray iyo sheekh Abu Bakar muallim mukarram oo isagu ahaa faqiih ahaa labadaasaa ugu baaris ahayd culimada inta kutubta laga akhrisan jiray marka sheekh aadan baa si khaasa wuxuu uga warhayn jiray ardada oo isaga ku jiri jiray oo meelaha ka jiray marka alwaalid raxmatullahi alayhi markuu shabaabka ahaa jidba xoog la gashay oo dhaakir badan buu ahaa isagoo cilmigii baranaya ayaa haddana waraciisii aad iyo aad badnay marka waxaa dhacday buu guri markii la geeyay hadiiba naag indhahay ku dhacdo dib ugu noqon maayo saddex cisho afar cishaan iska gaajoonaya kadib baa sheekhi loo sheegayaa wadaadkii cali ahaa gurigii ma tegin maxaa yeelay inaagu baa saa ii soo hormaraysa buu maalintii dambe uu masaajidka istaagay waa meesha ay suufi ka dhalatay wuxuu yidhi sheekh aadan wuxuu yidhi reer xamar bay ku adleen reer xamar bay ahaayeen ayaa loo duceeyaa ninkan wadaadkan oo xerowgan cali suufi waaye cali suufi waaye guri bilcaan joogta haddii si arkom ma tegaayo يا لدعية قري بالعنجوجين جيناية مركز دقبة استاجو يري أنا يا كحيناية وقري جيناية قري بالعن واجوك لكن ما أركايو سيدي با إلهي يقول نعمة يقولوا قري مركان تجو سجى إسرعنا وعما وضعنا دار بسوجوجنا عنتظر ماشى اللي يدقق سقوا سيد ما كلنا هذا شوفي وبيجهر ويدي بقول سو شيخي ما ربي شوفي علي صوفي سانو هذا عرب تجي علي سومالي بيسوب بدشي هل كان هذا شك قبض حانيجو
waxaan ku dhashay magaalo harar la yidhaah oo etoobiyadaas wakanaysan baan u malaynayaa halkaasaa waalidka dee madrase iyo uu ka hayay halkaasaan ku dhashay anoo taqriiban hal sano jira ayaa laigu yidhi baa laiga soo kaxayey markaa ma xusuusto anigu sanadka waktiga aan dhashay sida hadda baasaboorka igu qoranna waad la socotaan soomaalideenna badi waxaa weeye one soo maa bisha koobaad maalintii koobaad un baan nahay ma kastay taas waa ka saysin soomaalida taan la mid ahay waayahay laakiin waxaa baasaboorka igu qoran 62 haddaan isyareeyana dadka waxaan ku idhaa inta badan sidii la ii sheegay 64 baad dhalatay baa la igu yidhaa laakiin markii aan baasaboorkii qaadanaynay xoogay waa la isweynayn jirayoo dibadda markii loo baxay baasaboorkii la suma ogalay marka cala kulli xaal kan oo baasaboorka aan isaga dayno 62 kow marka ما قاد دكتور علي هدينو يران دون ملاينا مركز سدي ساستاي لكن حقيقة هدي لو صار ما المهم واسكسو سعنيو ماشي هذا أن كو عقلي يستي وحوجي أن كو يرفهمي أن قرنيو وحمر ميلان صومر مرة يسكجرت دو ولا سوق حيدوكا ولا جي قال كي بعد عيد حدني فرتي زمالي إلى آخره الوالد رحمة الله عليه وسردي أنا هاي الكاس مرة أن كجورنيو بولو بردميل إلى أنو دقني باجرتي أو هالك أن كوير عقليستي أو وحان كلا قرني يقولوا برد أدبانو قرنيا مركي دم بحمر باندو كوري كورلين كي هالك سيو رحمة الله عليه الوالد مسجد كا أساسي أو شعب رزاق خشي كيني مسجد كا إلى يومنا هذا مقع الشيخ علي الشوفي والليلة سو مؤقري تسوى دي شيء هذا وحورنجري هذا مسجد القرآن الكريم بالليلة كاسو بحيي كاسو نكون من تدي جري لكن ولا قد إلهي بقى بحي مركز دمبه هذا وحي بس كنا قتال حمر بوستجو شعل شوفي جي شعل شوفي وهذا الكلام ومن الله عز وجل أرنت أو شوفي اللي هو مقعابي شيخ كليل لكن مركز الآن تاريخ الشيخ أن كشيكين إلى زوج لنتونا أنا مركز هالكاسان أنا يل أيوه حلقة والدك وفريسي وحن حسوستا يرى وحن كقبو صلاة ده مركز اللي قالوا إنه أنتوا سوق حيو وصفك هرتي شيء فريسين جري waxaan halka ka qiyaasaya toban ka yara leena toddobaad la isam sheekhuna aad buu sunnada ugu dadaali jiray marka anoo saas ayaan hadan xalaqii dacwadii khayrkii meesha ka socotay alxamdulillah arinta uu akhuuna sheekh Cabdirazaaq uu tilmaamay ayaa ilaahayna waafajiyay quraankaasaan yaan u malayn maayo kullayba dibadaha Madiina waa laga tukan jiray 3 juz tahajjudka laakiin Soomaaliya kuma ogeyn inay iska jiraan waa laga yaabaa laakiin masjid caam oo la isu yimaada waxa ugu horeeyay hatta zaman alwalid ma saddexda juz oo tahajjudka lama tukan jirin oo dadku ma bay aqoon laakiin juzka taraawixda waliga ma uusan tagin ilaa haddana sidii baan insha Allah aan ku taaganahay marka maxaan kaloo ka sheekeeyaa sheekh saddex shay oo tajaarib alxayaa ay ku bartay calamadii alxayaa wallahi ma bakala xusuusan karo tajaarib alxayaa yani dee mar ardanimada soo maray oo aan Masar joogay oo waxyaalo badan ay soo mareen وإلهي وافجي خير بدن تجارب تسوى صومري مركي دمبي أو أنو دحق لي دعودي إيو أرنتي صومالي أنا مربضا وأنا صومرين يعني أنا ما شيء كرا يعني هذا أنا بالنسبة لي دعوتها أنت أن كنت الرودي وده مرينا ندي وحياة فربضا وأنا صومرين لكن وقتك أسكت ديرانا يهدي ما ركتي مركلا يسكن نقدون تا وحي وعبس بدنا مال الروا ها كوكو يابك بدنا كوكو عبس بدنا والله ارتعب سد عبسيده هرتو عيب ما هو النبي الله موسى بإلهي وخوف بقوت الماضي ولا مدبرا بوير سوما لا تخافنا إلهي واير ولا كعب سد وعبسيده ويسكجرته لكن هبين بكي أي قلدي إي مادين أنا سستلو رنجري أو أنت قللا سودك أنتو كدعي وضع عتاني حمر سجال سديتني سجال كبا هيد مالين خميسة ومالين تي عيد أهيد عيد بأهيد عيد الأضحى بأهيد عيد حج كي أهيد جمعة وأي كحكتي يا وها دولة قررتي أو قرار قادي إن لنا حلو علماء ما لها سون أدو حوجي هذا جرتي أنا حوجي بريهاس هذا الكيك وسكير بدنا أو محمد هذه يرجع جراع جري المهم وحكى لنا ما هينا وحن كول والسنين Soomaali badan oo Kristan sheegatay baan u aragnay oo bahalka xiratay oo ileen in fara badan oo in Yurub ku tagta doonaysa un baa iska jirtay gadhow hadhow masaajidadan ku aragnay xagga markaan Yurub tagnay
laakiin markaa hore khawf iyo cabsi gelisay waxaan nidhaa ma dadkani la gaaleeyaaba arrintaasaan marka aad uga hadalay siday u dhacdayba nin oo kaniisadda madax ka ahaa baa la dilay ilaahay baa nooga saray majmacana waan ka markhaati gelinaya shaqo kumaanaan lahayn mana aanaan amrin mana aanaan ogeyn tii baa dhacday cid ka dambaysa alla og adigu sababtaasaa laga dhigtay aroortii bay noo yimaadeen aniga mixraabkan oo fadhiyay ii yimaadeen saddex nin oo hadda aanan sheegayna laga yaaba hadday qaarkood joogaan meesha hal meelahaas in dhibaato yani ma sheegayo magacooda meeshaa laigu yimid waxaa la yidhi dawladdu waxay rabtaa odayaashu inay maanta kula shiraanoo qalalaasaa yar jiro waxa weeyaan qalalalahaas awgeed in wixii khudbada aad sheegi lahayd lagala tashadaa maanta lagugu yimid nakeen waxaan hadday xarig ay tahay ii sheega aan alaabteeda soo qaatay ma jirtaa leer waxaas xaasha lillahi xarigaad sheegaysa waa maxay war waxaas ma jira sheekh nakeen baabuurka ay soomaalida ay oran jireen xajiyad oran jireen oo biikaabta ahaa ayay wateen kii baa la ishaaray meeshii baan tanay sheekadiiba mar alla markay meeshii geliyeen way isbedeshay nin burus la yidhaha burus ma aqaan hadduu nool hadduu dhintay burus baa la yidhaha nin aad u madow oo indhihiisana gaduudan yihiin buu ahaa kaasaa la ii dhiibay nimankii cadcadaa ee qaarkood iska fiicnaan qaarna wejigooda aqayna way waaba iga tageenba burusaa la ii dhiibay burus waa i kaxeeyey qol yaroo ma garanaysaa oo bir ah horta wixii aan haysto dhan uu yidhi dhig halkaas saacadda dhig maxay dhig oo maxay sheekadii iyo qoladii ila tashan lahayd aawe maya sheeko galaa jirtee alaabtaada halkaa dhig waa nin loogu talagalo burus baa la yidhaha magaciisa masaa la yidhaha ma aha waxoo halkaasa adigu lig marka habeenka ugu khawf badnayd suu sheegaayo maalintii ku xigtoo jamcadii baa mudaaharaad dhacay sheekh cabdirasaaq waa ku jiray soo maaha waa ku jiray dadkii buu ku jiray maaragtay mudaaharaadka sameeyey berigaas waxyaalahan la duuduubay iyo ma jirinoo laakiin thawrada hadda carabta ay sheegaan rabiic alcarab iyo fulaan waa annaga uga horreynay waxaasoo dhan ummaddii markii culimmadii oo dhan sheekh ibraahim suuley sheekh ibraahim fulaan kalaanku hal mar la wada xidhay dadkii waa kaceen laakiin masjidka markasuu ahaa ra'iisuu ahaa halkaasaa la isku urursaday adigu mudaaharaad baa dhacay dhibaataa dhacday dhiig baa dhacay insha allahu intii dhimatayna allah u naxariisto laakiin ma annaan ogeyn na waa bixinay habeenkii oo dhan baa marka xabado dhacayeen dhulka qol mugdi ah oo biro ku xiran oo aan dariishad lahayn oo 18 ilaa 20 aan u malaynaya lagu caburiyey ayaa waxaa naga ag furantay rasaas xoog badan markaa shakiba ma soo gelin in ay dee maadaama ay xaalad halkaa marayso in lana laynayo taqriiban habeenkaas walwal baa iska yar jiray hadday taa nagu filan tahay waa ka almuhim ilaahay subxaanahu watacaala marxalay ahayd min almaraaxil wax badan aan ka faa'iidaysanay waxyaalahan ka faa'iidaystay waxaa ka mid ahaa nin baa la soo xidhay habeen ma la soo xidhay ninka marka qolkaygaa la keenay waa mar dambe ninkii uu seexday annana waa seexanay quraan buu bilaabay wuu hurdaa suuratu albaqar uu akhriyey aali cimraan buu akhriyey suuratu annisaa buu akhriyey marka uu marayo إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما تنور واي تلبذنا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا واي ثم halka xataa markuu maray wuxuu tii hore waa iska ilaali waa sii socdaa wuu hurda ninkii wuu hurda aniga waa soo jeedaa waa la yaabanahay subaxii baan waxaan weydiiyey ninkii warniyahu quraanka xaalad akhrinaysay waana hurdaysay wax u jiraan wallahi sheekh dadka baa iiraa buu yiri quraanka markaad seexataad akhrisaa baa lagu yiri laakiin xaafid buu ahaa sidiisa kale xaafid buu ahaa laakiin wuxuu yiri arrintaa wallahi inaana ka warhaynin ana waa arkaa waa nin hurda yani waxyaalihii cajaa'ibta lahaa ee sijniga igu soo maray ay ka mid ahayd wa kalena waa jiraa laakiin waqtigeeda lama hayo tawfiiqna allahna wabajiyo assalaamu calaykum